maleeshiyaad mala awaal iyo marin habaabin maalmo ay ugu qudbeynayeen madaxyaweynta khawaarijta iyo dagaal muddo ay abaabulayeen ayay geesiyada isgarabsanaya 5 maalin ka hor khamiistiina weedaaratay 22 January 2026 soo afjareen ma hayn kaliya jab dagaal iyo geeri la baday maleeshiyaad naxli waday waxa ka dhacay deegaan xebeedka Kudaa ee gobolka Jubbada Hoose balse waxay noqonaysaa bedelida jihadii Jarmaadka iyo afjarida halkii qaacida ee hiirakaalka ahaa Kudaa waa magaca khawaarijta maanta maqal deegaan ay ugu nacayb badan yihiin waxayna ku waayeen madaxyaweyntooda maleeshiyaad badan hub culus gaadiid dagaal iyo saanad ciidan oo xoogan markan waa waliba oo bariya saraakiisha hormuudka oo ah howlgalka baacsiga firxadka khawaarijta waxay soo warinayaan akhbaar ah helida meydad cusub gaadiid la gubay dhaawacyo geedaha hoostooda ku dandaraysan taa oo mar waliba sare u qaadaysa baaxadda khasaaraha khawaarijta ka gaaray deegaanka Kudaa khawaarijta ayaa Kudaa ku waayay in ka badan 200 oo isugu jira horjoogayaal muhiim u ah kooxda dhexdeeda maxaabiis dagaalka looga qabtay argagixisada qaarkood ayaa qiray in qasab lagu soo dagaalgeliyay deegaanka iyo dadka duulaanka ay ku yihiin aysan garanayn midkan oo kamid ah waxa uu qiray in indhihiisa ay qabanayeen raggii ay isku safka ahaayeen oo kala firxaday qaarkood oo habawna ay u soo gacan galeen geesiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab iyo ciidanka Jubbaland ma garanayna baayday way hadda ma inta soo weeraraysan inta ka imaateen bad jarkeed magaceed aan meeshan dhama ka saay ilaa kas dalaaydi waa khana meeshan magaceed si dalaaydi uu soo tay maleeshiya bad jaqad inta ku jirnay inta soo maray wadadana soo dhacay meesha liga soo bixi hadda ma oogi wadadana dhama soo maray maxana نيو بوليس سيف عني سافيري محنا هاي نيو بوليس ماشي نيو بوليس تكمل الله ساسا لي هاي حتى قانا بو نيو بوليس الا ده حلا بمريدين خوري افرت خزن وابو او قريغاي قفكا قادمو خوري تمرتيو فنانو سيبتا واي جرتي يا قاد ciidan kale iimaane dadkaas ana u dambeey xirad ana u dambeey marka xabad xirad soo dhicaysi ana waa soo ordayma qorshahoodii ahaa in ay burburiyaan magaalada isla markaasna ay barakiciyaan dadkeeda ayaa ku soo dhamaaday fashil iyo qoomamo guushan ayaa ka dhalatay iskaashi adag oo ay muujiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga Jubbaland kuwaas oo si isku duuban foojignaan iyo geesinimo leh u difaacay magaalada iyo shacabkeeda iyaga oo taageero ka helaya saaxiibada caalamka tanina waxay mar kale cadeyn u tahay in falalka argagixisada ay mar waliba ku dambeynayaan guul darro halka midnimada iyo adkeysiga ciidamada qaranku ay horseed u yihiin guul nabad iyo in ay rajo beelaan kooxaha cadawga ku ah shacabka Soomaaliyeed